السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله وديال ميل كسودنا نجلس عتان وارونيما جمعها بشة أكتوبر نوكو يلا واتنا سنة دلوا كون يلا بلا تنكا قضبات برنامج كنا كم أقل دونتان نوحا كاميدا يا كهر تاجن عندما دولة فدرال كيدل كيتوبي ولبا عندما إيرتريا إن الجلان مجرد عاصمة دوها ديجان كتكريجا مكالة cidda halkaasi ku hortaagan iyo guud ahaanba cidda u diidan inay galaan magaaladaasi ayaan soo qaadan doonaa oo la ogaaday iyo mudaharaadyo waaweyn oo dalka Itoobiya laga qaban qaabinaya inay ka dhacaan magaalnimada Sabtida ee inagu soo aadan cidda dhigaysa iyo guud ahaanba warar ku saabsan xogaha ayaan idin haynaa ciidamadii ugu badnaa oo u dhaqaaqay dhinaca deegaanka aadan yabal oo ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada shabaabka isla markaana kooxahaasi ayaa ciidamadii ugu badnaa iyagana dhankooda soo dhoobay magaaladaasi waxaana bilowday dagaal xoogan oo labada dhinac u dhaxeeya wararkiisii ugu dambeeyay waliba waxaan eegi doonaa guud ahaanba gobolada dalka iyo kacdoonka ka socda ee laga soo horjeedo kooxda argagixisada ee shabaabka Rasaari Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo wararkiisana waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka Itoobiya dagaalada xoogan ee dhexmaraya ciidamada dowladda Itoobiya waliba kooxda TPLF ayaa halkoodii ka sii socday iyadoo magaalooyin dhowr ah ay la wareegeen ciidamada dowladda ee huwanta ama xulafada ah ee Itoobiya iyo Eritrea balse waxay dad far badan isweydiinayaan sababta ciidamada huwanta ay u gaari laayeen magaalada Makale oo magaalooyinka ay haatan la wareegeen ka hor la weeraray isla markaana ay ciidamada dowladdu sheegeen in qarka u saaran yihiin muddo ku dhow bil ka hor waxaase ay guud ahaanba la helay xogaha rasmiga ah ee ku saabsan cidda ka hortaagan ciidamadaasi huwanta in ay gudaha u galaan magaalada Makale waxaana guud ahaanba magaaladaasi ka hortaagan ciidamadaasi huwanta reer galbeedka iyo Mareykanka oo u hanjabay ciidamada halkaasi ku sugan isla markaana doonaya in ay galaan magaaladaasi Makale waxaase xoguhu intaasi ku daraya in xitaa hub iyo waliba saanado kala duwan oo ku cusub saaxada dagaalka ee dalkaasi Itoobiya uu geeyay Mareykanku magaalada Makale isla markaana ay kooxda TPLF isku difaacayso ayna dhaafilayeen ciidamada huwanta ah ee doonayay magaaladaasi inay galaan cabsi xoogan ayaa soo food saartay ciidamadaasi waxaana ay ka baqanayaan inay guud ahaanba magaaladaasi gudaheeda ay ka dhacaan dhibaatooyin xoogan oo la gaarsiiyo dhanka ciidamada dowladda Itoobiya Mareykankuna horay ayuu uga digay inay magaaladaasi galaan waa isha kaliya ee u furan kooxdaasi TPLF isla markaana hubka iyo saanadaha kala duwan oo Mareykanku uga dajiyo iyo waliba wadamada reer galbeedka waxaana guud ahaanba ay diideen in ay xilligan gaaraan ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo iskaashanaya si kastoo ay haataba Mareykanka iyo reer galbeedka ayaa si hoose u taageeraya kooxaha TPLF waxaase haatan u muuqataa inay kor u qaadeen taageeradoodu oo ay banaanka keensadeen waxaana mar walba oo kooxdaasi weerar lagu qaado isla markaana ay dowladda Itoobiya doonayso inay ka saarto guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Itoobiya in ay afka furanayaan oo reer galbeedku ay guud ahaanba qayladaan soo saareen waxaana maalmihii la soo dhaafay ay sheegeen wadamada reer galbeedku inay xitaa cunaqabatayn ku soo rogi doonaan dowladda Itoobiya haddii ay joojin waayaan dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya si kasta oo ay haato magaalada ugu weyn deegaanka Tigreega ee Makale ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin xitaa ciidamo ka tirsan wadanka Mareykanka oo halkaasi taageero ku siinaya kooxahaasi TPLF sida xoguhu ay tilmaamayaan waa xogo soo baxay isla markaana warbaahinta maxalliga ee dalkaasi Itoobiya ay ka heleen magaaladaasi Makale waxay sheegeen in Makale noqotay guud ahaanba meel reer galbeedku uu gacanta ku hayo Mareykankuna uu si toos ah u taageerayo kooxdaasi TPLF waxaa 3 isbuuc ka hor magaaladaasi Makale ka digay diyaarad uu Mareykanku lahaa oo dhanka dagaalka iyadoo diyaaradaasi waxa ay waday iyo guud ahaanba faahfaahinteeda aanay dowladda Itoobiya ka hadlin balse Itoobiya waxay sheegtay in la wareegi doonto garoomada diyaaradaha ee deegaankaasi Tigreega arrintaasi ayaana guud ahaanba banaanka keentay shakiga dowladda Itoobiya ee ahaa in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay ku galabaxayaan gudaha deegaankaasi Tigreega oo ay taageero siinayaan kooxdaasi TPLF wadanka Djibouti waxa ku yaala saldhigyo military oo ay leeyihiin Mareykanka iyo waliba wadamada reer galbeedka intooda badan waxaana halkaasi ka soo duulaya diyaaradaha dagaalka isla markaana soo gaadhaya deegaanka Makale ama guud ahaanba deegaankaasi ay Makale ugu weyn tahay ee Tigreega
dhinaca kale wadanka Itoobiya waxaa laga qabanqaabinayaa mudaharad weyn oo ka dhici doona maalinimada Sabtida kaasi oo la sheegay in lagu taageerayo xukuumadda Abiy Ahmed isla markaana lagaga soo horjeedo faragelinta wadamada reer galbeedku ay ku hayaan dowladda Itoobiya iyo waxa ka soconaya dalkaasi Itoobiya inay gacmaha kula jiraan wadamada reer galbeedka. Mudaharadkaasi ayaa lagu codsanayaa in guud ahaanba wadamadaasi reer galbeedku ay faraha kala baxaan xaaladda gudaha ee dalkaasi Itoobiya. Maaha markii ugu horeysay ee mudaharad noocaas oo kale ah laga soo qabanqaabiyo gudaha dalkaasi Itoobiya isla markaana lagu dalbanayo in reer galbeedku ay faraha kala baxaan arrimaha gudaha ee dalkaasi Itoobiya. Si kastoo ay ahaataba waxaa la filayaa in kumanaan ka mid ah shacabka degan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Itoobiya inay isugu soo bixi doonaan fagaarayaasha dalkaasi si ay ugu muujiyaan taageero ciidamada xoogga ee dalkaasi Itoobiya iyo waliba ciidamada kala duwan ee la dagaalamaya kooxda TPLF-ta iyo waliba wadamada reer galbeedka ee faraha kula jira xaaladda gudaha ee dalkaasi Itoobiya. Mudaharadaasi waxay inta badan ku socdaan wadamada reer galbeedka ee faraha kula jira xaaladda gudaha ee dalkaasi Itoobiya. Waxaase aan la ogeyn guud ahaanba qaabka ay reer galbeedku u aqbalayaan soo jeedinta shacabkaasi iyo waliba sida ay xilligan isugu dhabarjebinayaan in guud ahaanba ka qayb qaataan xaaladaha waqooyiga dalkaasi Itoobiya ka taagan, iyadoo dhinaca kale afhayeenka guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu sheegay in wadanka Eritrea uu ka qayb qaadanayo dambiyada dagaal ee ka dhacaya waqooyiga wadankaasi Itoobiya. Waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dambiyo dagaal isla markaana ay dhibaato xoog badan ciidamada dalkaasi Eritrea ay geysanayaan loona baahan yahay inay isaga baxaan dalkaasi Itoobiya. Ayaa waxa uu soo jawaabay dalka Eritrea waxaana ay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay arrintaas isla markaana ciidamada dalka Eritrea aanay geysanin wax tacaddi ah oo ka dhana xuquuqda aadanaha una guud ahaanba doonayaan qaramada midoobay iyo waliba wadamada reer galbeedku in colaadda iyo dhibaatada ay kusii jiraan dadka reer Itoobiya. Wadanka Eritrea uu dhankiisa doonayo in colaadda iyo waliba dhibaatada ka taagan waqooyiga wadankaasi Itoobiya lasoo afjaro kooxda TPLF-tana laga adkaado. haatan aan eegno Soomaaliya. Duulaanka sida tooska ah maanta uga bilowday gobolka Shabeellaha Dhexe ee lagu sheegay midkii lagu xoreyn lahaa deegaanada gobolka ay ka joogaan kooxda argagixisada ee shabaabka ayaa durba waxay ciidamada ay la wareegeen tuulooyin dhowr ah. Muddooyinkii la soo dhaafay ciidanka dowladda iyo kuwa macawisleyda ayaa baabul ka waday deegaano ku dhow degmada Cadale iyo aagga degmada Balcad oo furimo kale laga furay. Abaanduulaha guutada afraad ee ciidamada xoogga dalka Bashiir Mukhtaar Axmed Bashiir City ayaa sheegay in howlgalkani uu yahay midkii lagu soo afjari lahaa kooxaha argagixisada ee ku sugan gobolada Shabeellooyinka. Abaanduulaha guutada afraad ee ciidamada xoogga dalka Bashiir Mukhtaar Axmed Bashiir City ayaa sheegay in howlgalkani yahay midkii lagu soo afjari lahaa kooxaha argagixisada. Sarkaalkani ayaa hoosta ka xariiqay in saanad iyo hub ciidan loo dhameystiray wixii hadda ka dambeeyana ay tahay in la qabto saldhigga ugu weyn ee kooxda argagixisada ee shabaabka ee Shabeellaha Dhexe ay ka joogaan ee degmada Aadan Yabal. Xildhibaan Cismaan Xadoole oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya qaybna ka ah duulaanka Shabeellaha Dhexe lagu xoreynayo ayaa sheegay in dhalinyarada la qalday ay ugu baaqayaan inay soo dhiibaan ama halkooda ay uga iman doonaan waa sida uu hadalka u dhigay. Gurmad gaadiid dagaal ah iyo waliba ciidamo badan ayaa Cadale ku sugnaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay, waxaana xildhibaano heer federaal iyo waliba heer Hirshabeellaba isugu jira ama ka tirsan ay ku hogaaminayeen howlgalka Cadale ciidamada dowladda iyo guud ahaanba dadkaasi dhanka macawisleyda ee beelaha ka socda. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan Axmed Faal iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta abaabulka dagaal ka waday ayaa cod dheer ku sheegay in shacabka kaalintooda laga sugayo inay ku soo biiraan halganka bilowday. Taniya howlgalkii Shabeellaha Dhexe markii ay curteen waxaa shabaab gacantooda laga saaray deegaanada kale ah Bakajeex, Warciise, Warkulan, Galeef, Qordheere iyo Jilibley, Xawaadley, Basra, Geelgub iyo waliba Xaaji Cali iyo Masaajid Cali Guduud oo noqon doonta goobta laga hago qabsashada deegaanada Ceel Baraf iyo waliba Aadan Yabal ee xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Warar madax bannaan oo aan helnay ayaa sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu tagi doono gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana uu kor kala socon doono duulaanka lagu xoreynayo deegaanada shabaab ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. Haddii Aadan Yabal gacanta dowladda Soomaaliya ay soo gasho waxay ka dhigan tahay in ay kala go'i doonaan shabaabka ku sugan labada Shabeelle, Hiiraan iyo Galgaduud isla markaana ay adkaan doonto inay isku gurmadaan oo ay isku gudbiyaan saanad iyo waliba hub iyo gurmad kaleba waa sida ay sheegeen dadka yaqaana arrimaha ciidamada.
madaxda dalka hogaamisa ayaa bilo ka hor waxay iclaamiyeen dagaal ka dhan ah kooxdaas argagixisada kaasi oo la rabo in guud ahaanba Soomaaliya laga saaro kooxahaas argagixisada ee shabaabka. Akhirta ashrafta leh wada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo.